waxaa maanta si rasmi ah dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya uga bilowday doorashooyinka golaha deegaanka iyo golaha wakiilada iyadoo kumanaan qof oo shacab ah ay u dareereen goobaha codbixinta si ay codkooda u dhiibtaan. Doorashooyinkan ayaa lagu tilmaamay kuwo muhiim u ah hirgelinta dimuqraadiyadda iyo in shacabka ay si toos ah u soo doortaan xubnaha matalaya deegaanadooda. Waxaana si weyn loo adkeeyay amniga goobaha ay codbixintu ka socoto iyadoo la geeyay ciidamada ammaanka ee dowladda federaalka iyo kuwa maamulka Koonfur Galbeed si loo xaqiijiyo nabadgelyada doorashada. Dadka shacabka ayaa dooranaya xubnaha ku matalaya golaha deegaanka halka tartamayaashu ka kala socdaan xisbiyo iyo ururo siyaasadeed oo kala duwan, taas oo sare u qaaday tartanka siyaasadeed iyo xiisadaha shacabka. Gudoomiyaha guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka iyo sohdimaha Mudane Cabdikariin Axmed Xasan oo ay wehelinayaan gudoomiye ku-xigeenka iyo xogayaha guud ee guddiga ayaa magaalada Baydhabo maanta si rasmi ah uga daafuray goobaha codbixinta doorashada, halkaas oo shacabka ku nool magaalada ay safaf dhaadheer uga jiraan dhiibashada codkooda. Guddiga doorashooyinka ayaa sidoo kale shaaciyay tirada musharaxiinta tartamaya golaha wakiilada iyo sidoo kale golaha deegaanka iyo dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya. Golaha wakiilada waa 15 urur siyaasadeed, 394 musharax, 322 rag ah iyo 72 dumar ah. Golaha deegaanka waa 18 urur siyaasadeed, 13 degmo oo ay ka dhacayaan ama lagu tartamayo. sidoo kale musharaxiinta ayaa waxa ay gaarayaan 297 qof, 22 rag ah iyo 275 dumar ah. waxaa xusid mudan in doorashooyinkan ay tahay tii ugu ballaarneed oo qof iyo cod ah ka dhacda deegaanada Koonfur Galbeed markii ugu horeysay, iyadoo dadka shacabka ay muujinayaan farxad iyo rajo ku aadan in codkooda uu door weyn ka qaadan doono hoggaanka deegaanka. goobaha codbixinta ayaa laga dareemay mashquul iyo dhaqdhaqaaq xooggan tan iyo saaka, halka guddiga doorashooyinka uu sheegay in habsami u socodka doorashada uu yahay mid wanaagsan isla markaana aysan jirin wax amni darro ah oo saameeyay codbixinta. ilaa hadda doorashadan ka dhacaysa dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa waxa ay dowladda federaalka Soomaaliya ay noqonaysaa midii labaad ee dalka ka hirgeliso, iyadoona bishii December sanadkii soo ilaaday 2025 dowladda federaalka Soomaaliya ay ku guuleysatay in doorasho qof iyo cod ah oo dadka shacabka ay golaha deegaanka ay dooranayaan ay ka dhacday magaalada Muqdisho, taas oo gobolka Banaadir ay noqotay muddo ka badan 50 sano ah ka dhacda. sidoo kale dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa waxa uu noqonayaa dowlad goboleedkii ugu horeeyay ee Soomaaliyeed ee laga qabto doorasho qof iyo cod ah ay dowladda federaalka Soomaaliya ay ka hirgeliso. waxaana dalka muddooyinkii la soo dhaafay ugu jiray diyaar garow dadka shacabka ay ugu diyaar garoobayaan inay doortaan xubnaha ku matalaya golaha deegaanka iyo sidoo kale golaha wakiilada.